waxay ahayd daraar xasuusta iyo sooyaalka baalka gashay waana dharaartii ugu dambeysay ee bishii saddexaad ayna dhaaftay waxayna ahayd maalin khamiisa maamulka guud iyo qaybo ka mid ah ardayda dugsiga Samaraad ayaa waxay booqasho gaaban ku tageen gobolka cagaaran ee Gabiley gaar ahaan magaalooyinka Arabsiya iyo Gabiley barqad diiran ayaan ka dhaqaaqnay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa annagoo cagta saarnay toobiyaha sida wacan loo hagaajiyay ee u dhaxeeya magaalooyinka mataanaha ee Hargeysa iyo Gabiley waa abaar oo weli dhibaca roobaad uma cunan sidii la filayay walow waxoogaa habisay gobolka Gabiley ka tiixay dharaare sii horreeyay taasna waxaa la kala tagtay jaanta bulshada iyo taayirka baabuurta in muddo haddaan laamiga sii garaacaynay waxaanu goor harsoo korkii lugta gelinay magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley halkaasi oo bartilmaameedka iyagu ahaa xarunta librariga oo aanu ballan qorshaysan ku lahayn si aan ugu qabanno barnaamijyo kooban oo ardaydu soo bandhigayeen khayrkiyo dastuurkii loo dajana kuma fulo umadan tajooyaqoon weli dunidana arag waduranda wahani mooye tacalooyo faariyey fadhii bidixee dadkuba kasoo wada beermaye barbaarihii naftay baraha noloshiyo afkay boqoradanu soo hitooleeso ku horyoobay ugu horeyn ilaahay baa mahadle mar labaadna waxaan mahadcelinayaa maamulka iyo ardayda iskuulka Samraad oo maanta booqasho ku yimiday maktabadda amarinta kutubta ee Gabiley Afrika dalkan waxa uu leeyahay sooyaalo iyo taariikho kala duwan dalka Soomaaliland waxa uu soo maray xukuno kala duwan haddii ay xukunadii kala duwanaa uu soo marnay dul istaagna waxaa ka mid ahaa xukunkii Masaarida xukunkii Cusmaaniyiinta iyo sidoo kale xukunkii u dambeeyay ee Ingiriiska Soomaaliland sooyaalka Soomaaliland waa mid cad oo inta ka saaran ama ka qarsoonayn waayahay haddii aan isku dayo arrimaha amba caqabadaha hortaagan aqoonsiga Soomaaliland aragti ahaan waxaan oran karaa waxaa ka mid ah kuwan dalalka qaaradda Afrika iyo madaxdooda oo ka cabsi qaba haddii ku dhawaaqaan aqoonsiga Soomaaliland inay dalal kale oo cusubi kala go'aan tanina ay noqoto wada furantay guud ahaanba madaxda qaaradda Afrika oo shardi ka dhigay inay arrintani u taalo madaxda Muqdisho iyo Hargeysa micnaha Soomaaliya iyo Somaliland shirarka ku saabsan arinta aqoonsi raadinta oo daacad laga ahayn isla markaana ay qabtaan ama ay abaabulaan dalal iyaguba aan daacad ka ahayn oo ka baqaya inay ka go'aan dalal kale dhammaan arrimahan iyo caqabadaha aad sheegtay waxay la tahay in lagu xallin karo fikir ahaantayda in dalka loo sameeyo saaxiibo badan oo ka baxsan qaaradda Afrika si ay taasi meesha uga saarto ku xidhnaanta madaxda Afrika ee iyaguba cabsida ka qaba inay ka go'aan dalal kale in shirarka aqoonsi raadinta la kordhiyo sarana loo qaado iyada oo la beegsanayo albaabo cusub oo aan ahayn kuwii 30 sano la garaacayay isna furistooda dheeraatay waqti kooban oo halkaasi aanu ku qaadanay kadib goor casar gaabadkii ah waxa aanu dib ugu soo gadaal noqonay degmada Arabsiyo halkaasi oo ay beeraha ay caanka ku tahay aan daawasho iyo booqasho ugu tamashlaynay ugu dambeynna waxaanu dib u soo guriya noqonay salaadii maqrib annagoo nabad qabnay guud ahaan iyo gaar ahaanba Xasan Bare Ducaale Hargeysa